بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم dhageystayaal meel kasta oo joogtaan iyo si kasta oo aad noo maqlaysaan halkani waa warbaahinta Ogaden 24 kuna soo dhawaada warbixinada maanta oo aan ku soo qaadi doono dagaal ka dhacay degmada Doolow oo dad shacab ah ay ku dhinteen qaar ka mid ah salaadiinta Ogaden iyo ugu caansan oo Addis Ababa looga yeeray Cabdi Ilay oo laga dayday gudaha magaalada Addis Ababa iyo qodobo kale aynu ku bilownay maamulka Itoobiya ee ka arimiya magaalada Addis Ababa ayaa qaaday tallaabo hor leh oo shacabka magaalada Jigjiga aad u hadalhayaan taasi oo ay faalooyin kala duwan ay ka bixinayaan maamulka Xeela Maryam ayaa u yeeray 7 ka mid ah salaadiinta caanka ee wadanka Ogaden kuwaasi oo sida naloo sheegay maalintii shalay ahayd diyaaradu ka raacay magaalada Jigjiga iyagoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya salaadiintan 7 gaaraya oo aanan helin magacyadooda iyo deegaanada ay ka soo jeedaan ayay u yeeristooda fikirro kala duwan ka muujiyeen dadka shacabka waxayna inta badan dadku isugu waramayaan in suldaamadaani looga yeeray in wax laga weydiiyo xaaladda guud ee wadanka Ogaden iyo habdhaqanka kooxda maamulka iminka haysa xuranka hoose ee shacabka ayaa inta ku daraya in kooxda mucaaradka ee Addis Ababa ku sugan ay dalbadeen in odayaashan loo yeero si looga xog wareysto xaqiiqada taalo wadanka Ogaden waana hadalhaynta ugu badan ee magaalada Jigjiga xalay ilaa maanta la isku wareysanayo si kastaba ahaatee odayaashan ayaa Addis Ababa ku beegmay xilli uu Cabdi Ilay saacado kaliya joogay gudaha magaalada Addis Ababa oo ku dhuumaalaysanayay taasi oo iyada lafteedu u muuqata qorshe hor leh oo kooxda Addis Ababa dejisay ayna ku doonayso inay Cabdi Ilay ku bahdisho geesta kale degmada Doolow ee gobolka Afdheer ayaa shalay waxa dagaal oo kharaar uu ku dhexmaray ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo dadka shacabka ee degmada Doolow degan dagaalkani ayaa ka dhashay kadib markii wakiilada gumaysiga Itoobiya degmada ay keeneen haween ay ka soo direen magaalada Jigjiga si ay u matalaan degmada Doolow doorashada soo socota ee aan la saadaalin karin qaabka ay u qabsoomi doonto shacabka degmada Doolow ayaa si khasab ah loogu soo shiriyay waxaana lagu amray inay doortaan haweenkani oo matali doona degmada Doolow odayaashii iyo waxgaradkii shirkaasi la keenay ayaa si cad uga hor yimid amarkaasi ciidamada ay soo rogeen waxayna u sheegeen in aysan qoorqabad ku dooran doonin xubnaha laga soo walwaalay magaalada Jigjiga ayna diyaar u ahayn inay doortaan shirkii ayaa isu bedelay buuq iyo faraha oo la isku taagtaagay waxayna shacabkii bilaabeen inay dhagax tuuraan ciidamadii iyo haweenkii Jigjiga laga keenay ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa bilaabay inay rasaas nool shacabka ku furaan waxayna goobtii isu bedeshay goob dagaal markii dambana dagaalku waxa uu ku fiday dhamaanba magaalada oo dhan dhimashada ilaa ay haddana soo gaadhay ayaa sheegaysa in 5 ka mid ah dadkii shacabka dhiidhiyay halkaasi ay ku dhinteen halka ay dhinteen 2 askari oo ka mid ah ciidamada gumaysiga Itoobiya ee shacabka gumaadayay xasaradaas shalay ka dhacday degmada Doolow ayaa waxa wali laga dareemayaa magaalada jawi colaadeed waxaana la soo sheegay inay surursadeen dhamaanba odayaashii waxgaradkii iyo waliba dhalinyaradii magaaladaasi si ay isaga caabiyaan dulmiga wakiilada gumaysiga Itoobiya dhanka kale madaxii maamulka Jigjiga ee Cabdi Ilay oo maalnimadii shalay ahayd dib ugu laabtay Addis Ababa ayaa dhamaanba goobihii laga filayay aan lagu arkin taasi oo xitaa dad badan ay shaki gelisay inuu yimid magaalada iyo in kale inta badan saaxiibada iyo kooxihii ay iska agdhowaayeen ayaa la xaqiijinayaa inay shalay ilaa xalay ay baadi goob ugu jiraan kana raadinayaan dhamaanba goobihii ay ka filayeen inuu ku soo degi doono kooxahani ayaa la sheegay marka ay ka samreen inay qaar ka mid ay u direen garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa si ay u soo xaqiijiyaan ama u rumaystaan warka sheegaya inuu magaalada Addis Ababa ka soo degay Cabdi Ilay hoteelada la filayay inuu dego sida Ras Hotel Hilton iyo kuwa kale ayaa dhamaantoodba xaqiijiyay in uusan cag soo dhigin oo uusan imaanin waxayna kooxdii dayday ahayd ay ku khasbanaadeen inay goor dambe oo xalay ahayd si ay kala hooydaan guryahooda kadib markii ay ka quusteen inay helaan saaxiibkoodii Ilay warar aan ku helayno ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya inuusan Cabdi Ilay hotel ku baleexan ee uu ku degay sarkaal Tigray ah gurigiisa kaasi oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada gumaysiga Itoobiya ahna madaxa rugta saraakiisha ee wasaaradda gaashaandhigga Itoobiya isku soo wada duuba Cabdi Ilay waxa uu dambeysay in Addis Ababa uu iska xaadiriyay duhurnimadii shalay ahayd waxaase la ogeyn ilaa iyo haatan halka uu ku sugan yahay intaas ayay ku dhan yihiin dhageystayaal warbixinadii maanta si toos ah waxaad ugala socoteen warbaahinta Ogaden 24